marka u horeysa waxaan bogaadinayaa dawladda Puntland iyo shacabkaba arinta ay kaga jiraan xoreynta gobolka Sool iyo xuduudaha Puntland aad iyo aad baan ugu dhiirigelinayaa ciidamadu inay garab istaagaan dawladda inay shacabku garab istaagaan ciidamadooda dalkana la xoreeyo dawladana waxaan ka codsanaynaa si degdeg ah inay dalka maqan u soo celiso xuduudaha Puntland u sugto qodobka labaad waxaan rabaa inaan maanta ka hadlo diyaasbarada muddooyinkii dambe oo dhan waxa Puntland ku soo qolqolaya ama dibadaha iska sharaxayay musharaxiin u tartamaysa xilka 2019 ee doorashada Puntland 8 January waxaan rabaa halka inaan kelmad ka iraahdo horta waxa la soo gaaray xilligii dadka dalka jooga ay xilka qaban lahaayeen oo ku ugu haboonayd sababtoo ah dalka niman waxba ka ogeyn waxba uma qaban karo taa waxa ka sii daran dhalinyaradeenni iyo aqoon-yahankeennii dalka wax u bartay oo la rabay inay dalkana u faa'iideeyaan iyana ka faa'iideystaan maalin walba inay ku dhimanayaan badaha iyagoo baasaboor raadinaya taasoo ay kaliftay niman baasaboor sidan ba xilin aan loo dhiibin sidaa darteed maanta reer Puntland waxay diyaar u yihiin nin dalka gudihiisa jooga oo la yaqaan wixii uu qabtay oo waliba dhalinyaro ah oo ciidan ah oo wadanaya in la doorto nin dibad ka yimina aan la dooran iska daa madaxweyne ee madax qaybeed ilaa madaxweyne inta u dhaxaysan midna inaan laga dhigin anigu ma diidayo dadka reer Puntland u dhashay oo banaanka jira si gaar ah u xumayn mayo fartan ugu fiiqimayo laakiin waxaan rabnaa 10 sano ugu yaraan markii ay joogaan ilmahoodana keenaan inay ka qayb qaataan insha Allah isu soo taagaan xilalka la midka ah hoggaanka dalka iyo wixii la mid ah inta ka horeysa wadani looma aqoonsan karo sababtoo ah nin baasaboor baadiye sita wadankaana aan waxba ka ogeyn haddaad wax u dhibatay haddaad adigu gaari aad mugdi ku kaxaysidaan dhaba lahayn habeenkii inuu dadees kala dhaco khasab bay noqonaysaa marka arrimahaas ayuu shirkeenu ku saabsan yahay doorka dhalinyarada doorashada Puntland insha Allah sidii madaxweynaha Puntland ba ku dhawaaqay hadda ka hor xilligeeda inaysan dhaafin baan iyadana taakiidinaynaa qodobkaas madaxweynuhu yiri maadaama dastuurkeena iyo aragtida dadka madaxweynaha ku dhawaaqay intaba la isku raacsan yahay iyaduna inay 8 January aysan dhaafin xilliga dhacdo baan rajaynaynaa doorka dhalinyarada waxaan soo jeedinayaa inay dalkooda u soo jeensadaan intay badaha ku dhimanayaan maantana nin ku haboon oo dalka joogay oo ciidan ah oo dalka iyo dadka anfici kara oo wadaniya oo wuxuu qabtay la yaqaan waxay la tahay miis baynu ku wada fadhinaayo waa is wada ognahay nin waliba wixii uu yahay inay maanta ka faa'iideystaan oo dadku waxay yiraahdaan dhalinyaradu waa madaxdii berri oo waa madaxdii muxuu ahaa mustaqbalka anigu oran maayo madaxdii maanta weeye oo waliba galin hore ah boqolkiiba 70 tirada dadka dhalinyaro weeye rag iyo dumarba gabdhaha iyo wiilasha wax bartay waxaan leeyahay dalkiina ka faa'iideysta dadka dibadana sidaasaan leeyahay hadalkaygii waxaan rabaa insha Allah inaan meelahaas ku soo ururiyo way afayeen tan marka ka hadlaysay diaspora oo kale markii sharaxaad laga hadlo musharaxnimada waxa sheegtay qof dalka gudihiisa in loo baahan yahay qiyaado la lahayd xilligan ku hadlay 2019 inuu tartamo shaqada madaxtinimo waa su'aal fiican Cabdi Axmed mahadsanid waxaan oran lahaa wax dadku igu barteen hadda waajiday oo suugaan iyo la yiraahdo waxaan oran lahaa dalka waxa anfici kara military dress liyo general deiraho darajada wax qabadkii diiwaanka galay iyo taariikhda daab ku leh dadka reer Puntland iyo shacabkuna ku dirsado nabadoon taamarka ka gudubno waxa jira qolo isma oo ka yimid Somaliland oo sheegay in arrin nabdeed wadaan arrintaas maxay adiga kula tahay muuqaal ahaan maxamed saciid waa mahadsan tahay su'aashaas waa su'aal fiican waxaan u malaynayaa maanta xilliga aynu joogno nimanka la yiraahdo habar awal iyo habar jaclo oo jeegan la isku yiraahdo wax wada hadal inay sanaga dhaxayn intii ay joogan xadka Puntland ilaa labada gaatama daba maraan xagga u dhaafaan wax hadal ah naga dhaxan kara ma jira